seebaad u aragtaa bal hadda oo aan filayo in laga duulayo sanaaduuqda la geynayo ama codaynta iyo kaadharka ay qaadanayaan reer laascaanood seebaad hadda arrintaa laftaanteeda u aragtaa horta xuduudihii 60kii isticmaalku inoo kala xadeeyaha ku dhaqmayni misal ku dhaqmayni midba haddii xuduudihii 60kii haddaan ku dhaqaayay magaalada xarshin la yidhaaho beesha isaaq baa iska leh reerka weliba sacad muuse la yidhaahaa ugu badan majority ahaan degan waxaan ku tixgeliyaan ku xurmeeyaa waa gobolka Itoobiya maya Ismaaciil maya kama hadlayna xuduudda Itoobiya waxaanu ka hadlaynaa xuduudda Boosaaso iyo waxaanu ka hadlaynaa arrimaha hartiga maynu ka hadlaynaa hartiga isticmaalkii 60kii xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliya lagu tagay cidna u daba fadhiisan mayno 16 jirkayga iyo 8 jirkayguba xuduudeeda inaan difaacno ayaan ugu talagalnay walaha inaan garoobo gacan ka taago golo baarlamaan fadhiista iyo ciidan ka hadla toonaba waxaan aqbali doonin baan qabaa walaalahayna waxaan leenahay war waan ugu ixtiraamnaa xuduudiina haddii ay tahay walaalahayga ku nool Puntland ما شاء الله وقبنمدي ساقة والبلوي يقاني يعني يا حويا يا لورن عاود وملا عاود كل والله عنانا يا هالك هول باي قصة تروح للي والله من ساقة يصور السنة وأروح اسمه شرتي وحويا وايد عاد هذا واحد سوق السنة قد هي والله السلام يا دماتي ما قف كي سؤال سد بالماسية اللي حلبانك وحودين يا في الكومة بالله كي كلامنا إن هذا واقع السلام يا كي كلامنا هذا واقع السلام يا وحيابا أخلاق الرضا كبحسن كدا مسؤول دنبا ماشي كجرا خدك كجرا فرصة بانادوها شيء مركا هاي بهدلين ما أنت هذا يورو شوك تام ماشي تونتبي شوك سؤال شتقول يبين سواين النقطة سؤال مهم أو صالك كوهايسة أرمد دبل ما نسيت يعني نقول سؤالك لا يعني سؤالين ونقارن أوكي فرحية إسماعيل علي أوكي waan hambalyeynaya Somaliland go'aanka ay gaadhay iyo 22 sanadood ee ay ku jirto okay annaguna walaal sidoo kale aan ku hambalyeynaa xildhibaanka lafdiyaantiisu uu ku maqlayaa wareen aad baan hambalyeynaya fadhiya uu ku hambalyeynaya xildhibaanka lafdiyaantiisu okay Norway xildhibaanka igu salaan okay Ismaaciil wuu ku maqlayaa hadalkaaga wuu maqlayaa waana waniga akhriyo qoraaladiina waayo goorahan baan iyo Ismaaciil baa isku jeedno qoraalada maan akhriyeyn Somaliland ka waran hadii beelaha darafyadu ay goostaan taasi adeer wax macquulaba ma aha oo su'aal maartay xildhibaanka khuseysana ma aha hadii goosanayaan iyo hadii kalaba taasi waa dadka deegaanka u taalaa اللهم صل على محمد اوكي عاوة اسماعيل waxaanu ka codsanaynaa inuu hargeysa nooga waramo su'aalahan aad wadaana aad naga joojisaan okay ismaaciil waan ku maqlayaa su'aashaas ugu muhiimsan dadku waxay ka codsanayaan inaad hargeysa ka waranto bas hargeysa maanta wanaga walaalaynii sheegay hargeysa saacadu waxay imika maraysaa haddii ilaahay beenin ka leeyahay waa 14 mirir waa 14 mirir okay waxaan usoo diyaar garownay haddii aan ku dadka uu ilaahay ka hore caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland aan nahay yariyo weynba inaanu ciddii kaarka codanta haysatay ay tuugada galaan si waajibaadkooda qarannimo ay gutaan tiina u diyaar baan nahay qof kastaaba saddex xisbi qaranku arko oo codayn doona كيوبان كجرنا إنانو عضينانو جعلنا إنانو سدحدان شاشة مانتي يعني أنا قف كستبكي لا أحالين عضية وديارنا ما شاء الله ساعد واد مقلسان ساعد سوينا سنبادو مقلسان ساعد وافرتيها بين محل دبانك لفتيانتيس وحا وتاغي شارع وتاغي وحتى حاسكيس بالله صعدا بل سيديبا dareemi kar lahayd hargeysa saacadan qofka isagoo jiilal soo galiyo saacaduna ay xilliga tahay qofka u diyaar ah inuu codeeyo waa impossible naxanaad badanaa ka dhacayso waliba bistayaal iyo gooya iyo koorar waaweyn aan lahayn hooyo iyo ubadkeediba ay shaaraca taagay saacadaas waa taas waxay tilmaamaysaa dimuqraadiyadda Somaliland iyo horumarka ay dadkani gaadheen iyo biseelka siyaasadda
okay ismaaciil arrimaha amniga ma nooga warrami kartaa walaal walaalay arrimaha amniga oon kaaga warrami karaa horta sidaan anaguba ka warqabno waxaanu la soconnaa in baabuurta inay shaqeeyaan baabuurtan commissionka mooyaane gaari kale inaanu shaqaynayn caawa 12 habeenimana in la joojiyay magaalada waxaanu kaloo ka warqabnaa britoole 6 subaxnimo ayay ku egta baan u malaynayaa waqtigii lagu talagalay in internetka laftiyaantiisa la joojiyo walaalay sida isbaqaran ee shimrida Soomaaliland waxaa la siiyey 15 gaari oo commissionka qaranka doorashooyinku oo xisbi kasta 15 gaari oo qaas u leeyahay bay lambar ugu xidhan shaqayn kara oo dadkooda soo guri kara oo si cadaalad bay u bixiyeen taa baabuurta commissionkuna way shaqaynayaan laakiin baabuurka dadku ay leeyihiin gaadiidka 12 o'clock baa la xidhay oo aanu gaadhna dhaqaaqi karin anigu goobtaan ka codaynayo iyo gurigan ku noolahay waxay isku jiraan markaan qiyaaso 3 kilomitir 4 kilomitir baan aniga iyo wadaadayda iyo laba qof oo guriga nugula nool baan soo lugayn oo dhaxanta u soo baxnay oo anigoo waliba xildhibaana laakiin sharciga dalka qeexaya in baabuurtii la joojiyay gaari aan lambarna aan haysan waxay u kalisteen aan lugtaa soo maro aniga oo aanan wax dhiba amba waxa aanan ka baqayn dalkaygu ku nool dadkayguna ay boqolkiiba ay ammaan yihiin oo saacad walba la lugayn karo ayaan wadada soo marnay waan ku ganacsanahay baabuurtaas socota mooy gaadiid kale inaan Hargeysa ka shaqaynin waliba waxaan ku hambaleynayaa commissionka qaranka doorashooyinka haldeyska laga xireen haddii ay tahay media amba facebooka social media ummaddu ay maanta ay ku faafinayso annagaa wadana iyo annagaa sii wadana waan ku mahadnaqayaa commissionka waxaan ku kalaan ugu sii mahadnaqayaa shirkadaha isgaarsiinta iyaguna ku adeecay tendeyska xilay talaabadaas iyaguna qaatay ay la qaatay ma sha Allah waa ilaahay maanta wuxuu wanaagsan u jixayaa walaaladayda Soomaaliland u dhashay iyo kuwa Soomaaliya u dhashayba walaalayaal dad walaaladiin maalle naxbaliyeeya oo waxaan doonaynaa la doona oo dad walaala abeen lahayd waad maqlaysaan Ismaaciil Jaamac Xirsi waa wiil aad u daayar oo aniga lafti ahaantaydan idila hadlayaaba waa lodka anigayga waaweynaa ma sha Allah sida uu fiican oo idila hadlay marka hal isu haneeyo gobonimada iyo walaaltinimadu waxa ay tahay walaalo wixii xumaanaha isku dayno wixii dhaliilaha isku dayno waxaan kala cabanay dhexdeena dhamaysan karnaayo walaalayaal aniga am soonay ma ilaaliyaan ciidamo sheeyna ma ilaaliyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta amaankayga suga walaalayaal waxaan lagula talin lahaa maanta haddii adiga la aqoonsanaa inaan am soonad muqdisho joogteen ciidamo sheeyna ay joogeen aan dalkayga iyo dadkayga iyo walaaladayba aan wax qaban lahaa Hargeysa gobasho u dhigi lahaa aan bartaa ku heshiisiin lahaa oo saa wax soo qabsay meesha bilaabay meesha ay marayso Allah ruuxan baa jira wax la qaata ما شاء الله وارين كوديشو وناسن اسماعيل وانا arrin lagaga daydo Somaliland iyo dhalinyaradeedu sida ay u shaqeynayaan iyo waxaan ku ri qaabka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay ugu xiran yihiin waana wax lagu hambaliyeeyo Somaliland kulli qofkii ka xununa waa qof isaga uurkiisa uu xanuun kale ku jira weeyaan imika wasiirka maaliyaddu Ismaaciilow reerkiina inuu noqdo ama reerkayga noqdo daadar wax dano inuu jiraa baa jira waxay dan inuu jirtaa waa arrimaha waxa weeyaan waa arrimaha dalka bay dan inuu jirtaa tii Soomaaliland ku caanamashay waa taas horta su'aalan ku weydiiyo aniga doorasanaysay kiiga qof wala jira oo aniga iga horeeya oo aan garanayn cid alaali cid u yahay adeeg ayaan kugu dhiibayaa wallahi waa qofkan gacantayda saa u haysta iga horeeya bal qadiyada Soomaaliland isaga laftiisu hadalkayga muu maqlayay wax ka weydiiya iyo meesha taagan isaga laftiisu magaciisa aan iisoo gudbiyo adoo iga raaliya Ismaaciil qof kale uu nagu xiray hadda Ismaaciil lafti ahaantiisu qof kale uu nagu xiray bal qofka oo iga horeeya waa qofku bilaatran baan waayahay Ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad barnaamijkeegana aad baad uga qayb gashay mahadsanid nagu dhib السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaad si toos ah khadka internetka walaal aad ugu jirtaa Ismaaciil Jaamac Xirsi waan la hadalnay marka adiga safkana lafti ahaantiisa ku jira
bal ka waran caawa siday ay u socoto codaynta iyo foodka Hargeysa bal nooga waran walaal Somaliland Somaliland gudan farxad baa lagu jiraa qof kasta oo muwaadiniina uu diyaar yahay inuu codkiisa oo ku hubsado sanduuqa iyo qofka uu laabtiisa ku haystay uu jecel yahay inuu mustaqbalka uu hogaamiyo wadankan qof kastana isagoo nabdoon oo goobta ku jooga farxad iyo rayn ayuu kuyugiisa ku jiraa wuxuu ixtiraamaya walaaladiisa ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya aniga laftayda xildhibaanka anu aan aqaanaa isagu day muu garanayn markii uu lahaa qofka aanan garanayn baan idinku dhiibayaa magacaaga walaal ma noo sheegi kartaa walaal waxa la yiraahdaa Saciid Cabdillaahi baa la yiraahdaa si fiican codkaagan si wanaagsan u garanaya codkaagan si wanaagsan u gartay sababtan ku weydiinayana waa caynkaas marka walaal waxaan gudanaynaa waajibaad qaran waana ku faraxsanahay wadankayagan xilliga u soo jeedaa dhaxanta u joognaa waxay tahay nidaam aanu ku dhisay wadankayaga waxaanu ka tanaasulnay dhiigii sokeeye iyo burburkii ay dagaaladu ay keenayeen barnaamijka qofka daadihinaya waa Jamaal Cabdillaahi Ismaaciil waa Jamaal Dhiica marka aad u taqaanay kolba qofka aad u taqaanay waana barnaamijku waa kii kaftaka siyaasadda ee Cali Xaraare wadi jiray weeyaan Cali lafdihaantiisu khadka waa ku jira marka bal walaal waxaad aan doonaynaa warbixin buuxda inaad naga siiso Ismaaciil laftiyaantiisu noo soo waramay sidee baad u aragtaa bal hadda Somaliland waxa ay qabsatay iyo Soomaaliya waxa ka baydahsan bal arinta muhiimadu waa taas weeyaan walaal Somaliland way isku tashatay dadka Somaliland walaalaha goob wada fadhiistay waxay isla meel dhigeen inay nolosha ay ku yabyabi karaan inay iyagu qulub meel ku wada mideeyaan oo gacmaha isudaan oo qan samaystaan ay kaga baxaan duruufaha adduunka laakiin ayaga ku nool wadanka Soomaaliya waxaan leenahay wax bini'aadantinimada ka baxsan baa socda dhiigoogii bay xalaashadeen ma aha dad aan maanta ma garanaysaa in wanaagsan way ku jirtaa laakiin waxaan leeyahay halka ay maanta joogaan hay isku dhaamaan tusaale ka dhigtaan dadka ka wanaagsan ee reer Somaliland ee iyaga 9 bilood la dhashay isku tashaday marka waxaan leeyahay waa inay 10 ka bartaan waa inay markasta oo Somaliland ay wax wanaagsan ay qabanaysaana ku taageeraan si iyaguba Britoola uga koobiyayaan oo u yiraahdaan Somaliland waxaasay qabsatay sidee u qabsatay iyaguna anaguna waxaan u diyaarnahay hadii Somaliland sida uu wadankayagu u hormaray ilaahay nagu garab galo oo ictiraaf caalami ah helo inaan anaguna ka qayb qaadan doono oo tusi doono walaalahayaga koonfurta habkii aan u marnay dib u heshiisiinta iyo qaran dhiska oo aanu ka saari doono xaaladda laakiin haday nala gartaan oo anaga gacanta noo sii daayaan oo ay naga duca iyo wanaagba ay nagu soo eegaan ay taas ku xiran ma sha Allah waa sidii gobonimada hayd ee walba lagu yaqaanay Somaliland ayuu idila hadlayaa okay halkan Saciidow inaba su'aal soo weydiinaysa waxay leedahay cagayra maadaama uu khadka ka baxay inanka ku jira baan la hadlayaa waxaana weydiinayaa bay tiri Somaliland waxa weeyaan beesha dhexe uu baa iska maamulataba mar walba la yiraahdaa laakiin beelaha darafyadu way caawdaan seebadu aragtaa arinta walaal Somaliland goob baa lagu wada dhisay cidda waliba dhistay magaranaysa doorka ugu weyn ku lahayd waxa weey waa beelaha darafyada oo markii ay beesha dhaxays cunaysay ay soo galeen wadanka daydaga haayeen oo iyagu madal iyo goob madal u qabtay oo iyaga isku soo bogooga burcad isku marinayay oo isku soo dhaweynayay maantana horumarka Somaliland iyaga kow ah kuma dulmana iyaga intaasoo sanaba soo maamulaya wadanka kuwan kalena waxaan leeyahay baash sool iyo sanaag iyaguna waa dadkii mudanka ahaa Somaliland aan wada ahayn waxba kama lahin qofna uma martay aha maamulka Somaliland waa wadan wada dhistay la wada leeyahay wiil iyo gabadhba dhinac ma garanaysaa horumarkeeda looga soo wada jeedo waxaan leeyahay
beelaha ku dayasho wanaagsan bay Somaliland mudan tahay marka Soomaaliya waxaan leenahay ku dayda سعيد آدي آد بولا الكوسلام يا وقت دير بين خدك كوتشرني أدي حل دبان كبا آد بندي السلام يا أرتا سعيد يسوارو ما تي أنا بروح اللبان كي سوق ليا نكا على حرارة يراهو كفتك السياسة ومدى نشوف إن دقا أرتا آد بان تاجريش وحي لكن حلي على waxaad tahay nin reer Soomaaliland nin gobolada Jabuuti Soomaaliland kasoo jeeda horta cali laftiyahantiisu waa aamusan yahay caawa wuxuu la aamusan yahayna garan mayno xataa xabad koomana muu soo qorin hadalladu waxyaabaan u malanaya waxbuu kala soo baxayaa hayee taasi waa iska taalaay laakiin fiidiyogan Ismaaciil oo caawa la dubay iyo sheekadan caawa socota ama recording way ku jirtaa YouTube kana salaada subaxnimaba way ku jirtaa laakiin waxa weeyaan si gobonnimadii lagu yaqaanay Somaliland caawa waa ta halka ka dhacday kaftaka siyaasadana way soo gelisay cali baan doonayaa inaan kelmadii yiraahdo garaaliya saaxiibkii cali xaraan waan jecelahay waa nin suxufiya waa nin aan oran karo ummadda Soomaaliyeed waa dadka qarankiisa iyo suxufiyadiisa ay ugu horeyso aan siin lahaa weerka ummadda Soomaaliyeed dadka ugu wanaagsan cali waxaan leeyahay abaalmarin baad qaranka ku leedahay haddii ay Jabuuti Soomaaliland waxaan ugu yarxabnay waxaan qabsanayna walaalo loo sheeg waxaan ku xunnahay badalish naga jirtana sheeg laakiin xaqiiqada in uu maqlaya khadka uu ku jira komanka dulbo waa ka soo qoray isagoo qoslaya wuxuu yiri Soomaaliland waa dalkayga hooyo waanan u hambalyeynaya waxa ay qabsadeen xildhibaankana waan salaamayaa okay waa isaga laftigiisu ku salaamayaa علي shahaado sharaf baan hayaa word baan hayaa shahaado sharaf ومجلسك وقولين برتا عن فيسبوك كله هنا أنا مجلسة فروان كسو حرني بانو لقي دونا إن شاء الله بسم الله الكريم ولا سومالنا waxay qabsatay Soomaaliya oo dhan lama mid aha wax badan bay qabsatay marka Soomaalida dambana wuxuu maan leenahay ku dayda sida Soomaaliland ay u socotay idinku ku dayda baan leenahay Ismaaciil Caawo kullee waan ku gaaday baan u malaynayaa laakiin mar aan ku gaadin mar ninka cali la yiraahdo kiyalaab علي دمان كل way kula soo xidhiidhi doonaan insha Allah bidmilaahi karim because of waxa weeyaan caawo de gaad ma ku dhacday adigoo saf ku jira nagana raalaha walaal aad baan u mahadsan tahay xidhiidhka ma garanaysa iyo warbixinta aad nasiisay inta iyo waqtiga noo hortayba aad badu inta farta kuma qaldan iyo kuwa soo bixinaysa umada Soomaaliyeed meel kasta joogtaba guul iyo gobonnimaan u ogahay Soomaaliland waxaan leeyahay gobonnimada soo gaa gobonnimo wasii lagu yaqaan Soomaaliland ilaahayna waxa ka baraya aruuxa maanta waa kaabayna xashki joognay sanadkaas adkiisa inagu caadadna xashkaynu gudunay baa la dhimaantay ma sha Allah cidi faataxa qaska wadana waxaan leenahay aad naga daay ciyaarta يا شمس تريد يا والله واي سلام الله عليك والله اسماعيل واي كاس waxa wahaa Ismaaciil oo loo yaqaano Ismaaciil Cagayare amaba magaciisa saddexan Ismaaciil Jaamac Ali Xirsi waa Ismaaciil Cagayare waa xildhibaan golaha deegaanka oo Hargeysa ah oo waraysi kaga qaaday caawa halkan على حرارة لفتهانتيس waxa uu la aamusay garamaayo isaga laftigiisu waa ku jira khadka waa qoslaya video live kan waxaan u duubnay inaanu warbixin buuxda aan ka qaado Somaliland iyo doorashadu sida ay u socoto Saciid Cabdi Aar oo uu ugu dhibay khadka Saciid si wanaagsan baad u garanaysaan markii hore wuxuu ka tirsanaa xusbiga Wicid degmada Gacan Libaax haddana waxa uu ku jira baan jecelahay xusbiga Kulmiye oo orolaya awal wuxuu ahaa dhalinyaradii Jamaal taageeri jirtay laakiin maadaama uu Jamaal xagga ka yimi baan jecelahay isaga laftigiisu dadkii ka daba yimi Kulmiyuha Saciid waxba yaana faaladiisa ku daalin haddaan sharaxood u doono inuu uga xanaaqa baa dhici karta dhammaantiin ba aad iyo aad baan idin salaamayaa haddii aana khaldanin xataa laftihaanteeda aad baan idin salaamayaa laakiin kolle haddii barnaamij la qabanayo dhalinyarada waxaan ka codsanayaa inay iska dhaafaan waxyaabaha kuturkuteenka ah iyo sheekooyinka beenta ah ee aanan akhriyin ee caawa halkan ku soo qorayeen oo komanka ahayd waxa wanaagsan kolle haddii dood lagu jiro in dooda loo qabto
ama warbixin lagu jiro in sidii ay wax yihiin loo qabto saacaddu iminka hargeysa waxay taagantahay waa 4 habeenimo ayay garaacaysaa khaasatan waddanka jarmalkan joognana waxay garaacaysaa 2:26 dhammaanba wixii kasoo qayb galanay aad baad ugu mahadsantii kiini common khaldan bixiyey waa halkii ismaaciil iyo kiini common saxaba bixiyeba waxaan idin leeyahay waa jamaal cabdillaahi ismaaciil oo idinkaga tegaya asalaamu calaykum